Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaan. Waa anigoo ah Macalin Shariif. Waalidiin badan ayaa carruurtoodii waddankan ka waday. In badan oo ka mid ah waxay aadeen Kenya, in badan oo ka midana waddamada khaliijka sida Qatar, Imaaraadka. In badan oo kalena waxay door bideen inay aadaan waddanka Masar. waalidiintan sabab kasta ay u aadaan waddamadanba waxay aad mar kasta uga walwalaan mustaqbalka carruurtooda. Su-aasha ay mar kasta isweydiiyaanna waa carruurtaada haddii meeshan ay sii joogaan oo ay sameeyaan waxbarashadooda ku sameeyaan waddankaas ama Kenya ama Masar ama Qatar ama Dubai, waddankay noqotaba waddanka dibaddiisa, waddankan Ingiriiska dibaddiisa, carruurtooda maadaama ay ku sameynayaan waxbarashadooda secondary educationka iyo midooda dugsiga sare ama sixth formka. Su-aasha isweydiiyana waxay tahay canugaaga haddii uu soo noqdo asagoo 18 jir ah, shahaadooyinkiisa ma loo tixgelinayaa? Jaamacad ma heli doonaa? Su-aalahan waalidiinta maskaxdooda ayay ka guuxayaan. waana sababtaan u sameynayo videogan. Guud ahaan waddamadan dhammaantood waxay leeyihiin iskoolaad la yidhaahdo international schools. Iskoolaadkan la yidhahdo international schoolska waxay sameeyaan IGCSE, halka waddankan Ingiriiska laga sameeyo GCSE. Marka su-aasha koowaad waxay tahay waa maxay farqiga u dhexeeya GCSE iyo IGCSE? Horta GCSE waxay u taagan tahay General Certificate of Secondary School Education, halka IGCSE ay u taagan tahay International General Certificate of Secondary Education. Marka labadan shahaado waa laba shahaado oo isku mid ah. Labadooda shahaadana waxaa bixiya hay-adaha waddankan Ingiriiska. waa manhaj uu leeyahay waddankan Ingiriiska. manhajkan waxaa diyaariyey dowladda waddankan Ingiriiska, laakiin waxaa meel mariyey oo buugaagta soo saaray oo imtixaanaadka qaada oo shahaadooyinka bixiya hay-adaha waddankan Ingiriiska. Marka GCSE haddaad maqasho wuxuu u taagan yahay General Certificate of Secondary School Education. IGCSE-na wuxuu u taagan yahay International General Certificate of Secondary School Education. waa manhaj laga leeyahay waddankan Ingiriiska. meel kastoo lagu baraba manhajkan waa manhaj Ingiriisi. marka maadaama uu yahay manhaj Ingiriisa, labadan shahaado labaduba waa isku mid. wax ay isdhaamaan oo ilaah abuurtay ma jirto. cunuga GCSE haysta iyo kan IGCSE haysta hadday jaamacadda dalbadaan waxaa la fiirinayaa oo keliya grade-ka ay keensadeen. haddii grade-ka uu keensado cunugaaga grade 9 uu yahay, cunuga GCSE-ga keensadana hadduu grade 7 yahay, waxaa la qaadanayaa cunuga inkastoo waddankan uusan waxba ku baranin uu kusoo bartay waddan kaleeto, ama Kenya ha ahaato ama Masar ha ahaato ama Imaaraadka ha ahaato ama Qatar ha ahaato. manhajkan waa manhaj Ingiriiska. shahaadada waxaa bixiya Ingiriiska, ayaga ayaana tixgelinaya hodhow marka uu soo noqdo cunugaaga uu wax ka baranayo, uu doonayo inuu wax ka barto jaamacadaha waddankan Ingiriiska. marka labadan shahaado waa isku mid oo wax ay isdhaamaan oo ilaah abuurtay ma jirto. marka su-aasha ah canugaaga haddii uu dibadda kusoo sameeyo wax, muhiimaddu waxay tahay canugaaga ma sameeyey IGCSE. IGCSE canugaaga haddii uu sameeyey meel kastuu ku sameeyaba waddankan waa laga aqbalayaa, waana laga tixgelinayaa. jaamacaddana wuxuu haystaa fursad kasta oo uu haysto cunuga halkan ku bartay ee sameeyey GCSE. okay, haddaba maxaa dhacaya marka haddii canugaaga uu dibadda wax kusoo barto laakiin uusan sameynin IGCSE? canugaaga haddii uusan sameynin IGCSE, tusaale ahaan uu sameeyo manhajka Kenyaatiga oo kale ama manhajka Imaaraadka oo kale
ama manhajka qadar oo kaleeto ama manhajka masaarida oo kaleeto haddii uu soo sameeyey uu halkan u yimaado waddankan ingiriiska manhajyadaas oo dhan ma aqoonsana shahaadadooda laakiin waxaa jirta hay-ad cunugaaga shahaadada uu kasoo qaato waddankaas fiirinaysa markaas kabacdi waxay siinayaan level waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan cunugaaga asagoo kasoo baxay dugsi sare inay yidhaahdaan shahaadadiisa waxay u qalantaa dugsi hoose markaas cunugaaga halkan dugsi sare waa inuu ka sameeyo markaas kabacdi jaamacadda uu u gudbo dugsiga sare guud ahaan waxaa waaye A level ama B tech course level 3 course waa inuu sameeyo sida aan ogsoonahay waddankan ingiriiska manhajkiisa wuxuu u samaysan yahay jaranjaro oo kale waxaa ugu horeeya entry 1 waddankan ingiriiska primary cunuga marka uu joogo ama key stage 1 waxa uu baranayo levelka uu baranayo waxaa la yidhahdaa entry 1 marka key stage 2 ayuu tegayaa key stage 2 markuu tago wuxuu baranayaa entry 2 marka uu yimaado key stage 3 canugaaga wuxuu baranayaa entry 3 marka uu yimaado first year GCSE ama year 10ka markaas wuxuu baranayaa level 1 marka uu dhameeyo cunugaaga uu GCSE u qaato wuxuu marayaa waxbarashadiisa level 2 marka uu sameeyo A level ama B tech uu sameeyo wuxuu marayaa waxbarashadiisa heerka waxbarashadiisa waa level 3 markaas jaamacadda ayuu gudbayaa jaamacadda marka sanadka koowaad waa level 4 sanadka labaad waa level 5 sanadka saddexaadna waa level 6 marka canugaaga marka uu sameeyo degree uu sameeyo wuxuu haystaa waxbarashadiisa heerka level 6 marka uu sameeyo masters wuxuu haystaa level 7 marka uu sameeyo PhD ama doctorate uu sameeyo wuxuu haystaa level 8 waxbarashana halkaas ayaa ugu dambeysa markaas kabacdi isagaa noqonaya mataqaanaa qof wax kusoo biiriya adduunkan amaba waxbarashada isagaa noqonaya marka canugaaga haddii waddan kale manhajkiisa uu wax kusoo bartay uu halkan u yimaado waxaa jirta hay-ad uu u diraayo shahaadadiisa markaas hay-addaas waxay siinaysaa level waxay leedahay waxaan aan soo baratay waxay u qalantaa level hebel markaas cunugaaga waa inuu haddii la yidhahdo kasoo qabo cunugaaga asagoo dugsi sare soo sameeyey waxbarashadaada waxay u qalantaa level 1 la yidhahdo cunugaaga waa inuu level 2 sameeyo halkan level 3 markaas kabacdi sameeyo markaas kabacdi ayay jaamacadda level 4 ka qaadanaysaa ama sanadka ugu horeeya jaamacadda la qaadanaya waxaan xasuustaa gabar ciraaqiyad ahayd oo waddankan ingiriiska timid marka waxay wax ku soo baratay waddankeedii hooyo ee ciraaq waxay soo samaysay digriigii koowaad way soo samaysay mastersna way soo samaysay marka waxbarashadeeda waxay taagan tahay level 7 markii halkan ay timid isku jaamacadan dhiganaynay markii halkan timid jaamacadda masterskeeda waxaa loo tixgeliyey in ay la mid tahay sanadka labaad ee jaamacadda digriiga koowaad ya bachelorka sanadka labaad ayaa loo tixgeliyey marka ayadoo masters haysata oo naga sareysa ayay waxay nala soo fadhiisatay sanadka labaad ee jaamacadda marka cunugaaga haddii dibadda uu joogo oo uu soo barto wax ku soo barto manhaj kaleeto markii halkan u yimaado manhajkiisa waa loo tixgelinaya laakiin waxaa laga yaabaa asagoo manhajkaas heer sare wax ka soo bartay in la geeyo heer hoose la geeyo ayaa macquul laakiin haddii canugaaga uu kusoo barto dibadda uu kusoo barto oo uu soo sameeyo IGCSE haddii uu soo sameeyo halkan u yimaado jaamacadda waa ay qaadanaysaa sidoo kaleeto international A levels ayaa jira waxaa lagu bartaa international A levelska dibadda wadamada dibadda waddanka horeba ha ahaado wadamada dibadda ayaa lagu bartaa 2 sano ayay ka qaadanaysaa shahaadada canugaaga waxaa siinaya IGCSE haddii uu barto iyo haddii IA levels uu bartaba canugaaga waxaa shahaado siinaya hay-adaha waddankan ingiriiska sidaa darteed shahaadadiisa waxay la mid tahay asagoo wax ku bartay waddankan ingiriiska oo kale cunugaaga marka haddii dibadda uu joogo IGCSE uu sameynayaa IGCSE markuu dhammaystiro haddana wuxuu sameynayaa IA levels ama international A levels markaas
halkan wuxuu u imaan karaa jaamacadda oo keliya. sidoo kaleeto canugaaga haddii IGCSE uu dibadda kusoo sameeyo halkan wuxuu u imaan karaa inuu sameeyo A levels ama dugsi sare markaa kabacdi jaamacadda uu sii gudbi karaa. marka isku soo duuduub waddan kastoo aad geysay carruurtaada mar haddii ay baranayaan IGCSE oo ah manhajka waddankan ingiriiska marka halkan u yimaada canugaaga kolleejyadana way qaadanayaan six formyada way qaadanayaan jaamacadahana waa ay qaadanayaan wax farqiga oo u dhexeeya ardayda waddankan ingiriiska wax ku baratana ma jirto. waxaa keliya oo la eegayo gareedka uu haysto waa intaas. sidaa daraaddeed waxaa muhiim ku ah meel kastoo aad joogtaba in canugaaga u barto IGCSE oo ah manhajkan waddankan ingiriiska. haddaba waxaa jira waalidiin badan oo carruurtooda geeya manhajka waddanka maraykanka. manhajka waddanka maraykankana waa uu ka gedisan yahay manhajka waddankan ingiriiska. ma la aqbalaa? haa, waa la aqbalaa. haddii canugaaga manhajka maraykanka waxaa la yidhahdaa international baccalaureate. haddii canugaaga uu soo barto international baccalaureate-ka sidoo kaleeto waddankan ingiriiska waa ay aqbalaan. ugu dambeyn waxaan rajaynayaa waalidiinta faraha badan ee ila soo xiriirta ee janaalkayga ku xiran ee ka walwalsan carruurtooda dibadaha ay geeyeen manhajyada ay wax ku baranayaan iyo walwalkooda ku aadan marka ay soo celiyaan in halkan ay wax kasii baran karaan iyo in kaleeto waa inaga intaas. su-aasha ahayd manhajka IGCSE-ga iyo GCSE-ga farqiga u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inaad wax badan aad ka fahamtiin. haddii ay jirto su-aal kale oo ku saabsan manhajkan fadlan hoos iigu dhaaf. sidoo kaleeto waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagto waalid kasta oo walwalkii adiga aad qabtay oo kaleeto qaba oo ka qaba carruurtooda halkan markay usoo celiyaan inay wax kasii baran karaan iyo in kaleeto gaarsii videogan lana wadaag. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.